madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa qaabilay dhakhaatiir u dhalatay waddanka Turkiga oo 35 kiis oo caafimaad oo waddanka gudihiisa waxba looga qaban waayo ka fuliyay cisbitaalka Sultan Sheikh Hassan Yabre Referral Hospital ee magaalada Jigjiga kuwaas oo dhammaantood lagu guuleystay madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa dhakhaatiirtan kiisaska caafimaad ee u baahan lahaa waddanka dibaddiisa ku guuleysteen ee ka fuliyaan gudaha deegaanka uga mahad celiyay madaxweynaha ayaana sheegay in waxyaabaha ugu weyn ee bulshadu u baahan tahay ay ka mid yihiin amniga akhlaaqda iyo aqoonta dhakhaatiirta ka yimid waddanka Turkigana maanta deegaanka ay keeneen aqoontii oo mid maanta deegaanku si weyn looga baahnaa allana uu sabab uga dhigay inay badbaadiyaan 35 qof oo xaaladooda caafimaad aan waxba looga qaban karin gudaha waddanka kasakow kiisaska caafimaad ee waaweyn ay fuliyeen dhakhaatiirtan u dhalatay waddanka Turkiga waxay aqoon siiyeen xirfadlayaasha caafimaad ee ka howlgalay gudaha cisbitaalka Sultan Sheikh Hassan Yabre Referral Hospital ee magaalada Jigjiga haddaba maareeyaha cisbitaalka Sultan Sheikh Hassan Yabre ayaa wax ka weydiinay kiisaska caafimaad ee dhakhaatiirtan fuliyeen dhakhaatiirtan waa professor ka yimid Turkiga jaamacadda weyn ee Istanbul ku yaala waa dhakhaatiir fulisay procedure-rada ama yani qalooyada ugu casriga hadda adduunka ah oo inta badan hadda ay ka sameeyaan lagu sameeyay Ethiopia kuwaas oo ahaa kuwa badan oo kamid ah kuwa mataqaanada dadku ay u aadi jireen waddanka dibaddiisa saddex qaybood bayna ka koobnaayeen qaybtan la yiraahdo ENT ama sanka iyo dhagaha iyo cunaha ay ka kooban tahay iyo qaybtan surgery-ga qalooyada laakiin ay isticmaalayaan mataqaantaa waxaan la yiraahdaa minimal invasive surgery oo ah videoga kamerada wax lagu qalayo iyo qaybta dumarka oo makaankii xaggan laga qalayo oo haday kansar tahay burahatay tahay iyadoo noocii hore ee ayakuna furaa aan la isticmaalaynin ayakuna ay la isticmaalayaan noocan minimal invasive procedure-ka ee kamerada marka inta ay joogeen iminka 5 cisho joogeen 5 cisho waxa ka faa'iideystay ilaa iyo 35 qof oo cases xaqiiqdi waaweyn bay ahaayeen tiraan way yar yihiin laakiin casesku aad bay u cuslaayeen waa case walba noqon lahaa in mataqaantaa waddanka dibaddiisa uu tago qaybtan tusaalahaan oo kale dhagahoo kale waxaa ka mid ahaa in dad maqalkoodii waayey inuu ilaahay idamkii ugu soo celiyo qalbiyada ay ku sameeyaan qaybahan kale oo iyaguna kama soo dhacaan oo kama liidaan haday tahay mataqaantaa dumarka ay ka soo gurayeen burooyinka iyo haday tahay surgery kale ee qaybtan kale ee kamerada isticmaalayeen waxa iyadoo barba socday in dhakhaatiirtii ay mataqaantaa ay tababarayeen si hadda kadib iyaguna ay u sii wadaan waxa xusid mudan in jaamacadaha laftirkooda hadda jaamacadda dhakhaatiirta ay ka socdaan 5 dhakhtar oo xukuumaddu ay tirtay hadda ka hor oo 3 bilood training soo qaatay inay hadda ka hor training ay soo si fiican u soo tababareen Steve ay daba socotay dhakhaatiirta ay soo tababareen iyo kuwa kale halkan tababar labaad bay ku siinayeen marka wax weyn oo ummad aan isdhihi kara halkii qof hadaan qiyaaso lacagtay hard currency ama dollar badan ay ku bixi lahayd Turkiga oo kale ayay mataqaantaa halkan oo Ilaahay u sahlay inay ku fuliyaan xaqiiqdii targetkaygu referral ahaan waxa weeye si guudba in caseska waddanka dadka mataqaantaa dibadda aad hayay in mataqaantaa aanu joojino weeye waxa aanu leenahay targetka aan leenahay jiidadeedu weyn haday tahay shuman ama xanuunada caadiga ee dhaxan ama wax meel walba lagu daweeyo laakiin referral hospital ahaan caseska dadkeena mataqaantaa shacabkeena ay ku dhiban yihiin ayaa muhiimad noo leh qoladan Turkiga markii labaad way hadda campaign ay maadaan mar hore lafo ku khaas ku ahaa 2 sano ka hor baan malaynayaa sidoo kale waxaan xiriir la sameynay Pakistan jaamacadda ku yaala oo iyaguna imika dhakhaatiirnimo tababari doona ayadna imaan doona marka insha Allah albaab walba waan garaacaynaa oo lagu badbaadin karo mataqaantaa dadkii dibadda kharash kaga baxay iyo in badan oo ka badan mayna awoodinba rafaadka ay u marayeen inaan mataqaantaa ay ka nagaadaan insha Allah waan ku dadaalaynaa